وعند وهاي كلن آدي بعض مهتسنت هاي أجسمها جود الصومالي إيريش ميديا كلن موسى أو هنتي بدال يكتب بدل موتي سيدي صومالي ذلك أيرلاند وجالسين لها وركة قصة بسن أرمها شرعية ذا أرمها كلا بالشدة تاسي أو هنتي وربحين تي هراء إن كل شيء إن محكمة ذلك قصة رئيسة أساس أرتيجو آن رنايا إن قفك شرعية دار شدة ذلك الصين أيو أي تهاي إن أنا وضن كان مالن وركة بحين sida oo kale Soomaaliya Irish Media waxay Facebook-geeda soo dhigtay iyadoo qoraal hadal wasiirka cadaaladda Twitter-kiisa soo dhigay oo uu sheegay in hawsha si walaac badan runtii ay ka muujiyeen aadna ay uga xun yihiin runtii in go'aankaasi uu saameyn weyn ku yeesho bulshooyinka dalbanaysa dhalashada wadankan sidoo kale wasiirku sheegay in xiriiraha gudaha qaranka ay iska arki karaan hawshatan iska arkayaan hawshatan sidii sharci degdeg loo soo saari lahaa hadaba kudina waxa jirta hay'adda dalkan u qaabilsan xagga dhalashooyinka iyo sharciga iyo immigration-ka ayaa iyadana waxay soo saartay qoraal bay soo saartay bayaan ay ku sheegayso kaga hadlayso arrintan iyo saameynta ay dadku ku yeelan doonto iyadoo runtii wax dhinacyo badan u dhigaysa in dadka dalkan jooga ee doonaya in dhalashada ay helaan ay runtii ugu laab qaboojinayso inaanay runtii hawshatan aad waxba badan iska bedelaynin waxa ay sheegeen in go'aankan ay aad uga xun yihiin go'aankan ay dareensan yihiin sida uu saameynta badan ugu leeyahay dadka iyo dadkuba inay walaac ka muujiyeen taasi waxaanay runtii u damaanad qaadeen inay qaadayaan dhammaan tallaabooyin ku saabsan sidii arrintan xal degdeg looga gaar lahaa oo dadku runtii loo ilaalin lahaa dantooda marka ay noqoto kuwa codsaday iyo kuwa doonaya inay codsadaan mustaqbalka dhalashada intaasi runtii tixgelin gaar ah loo siinayo oo ay muhiimadda siinayaan qofka runtii codsanaya waxa ay sheegeen qaybta u qaabilsan dhalasho bixinta dalkani inay u damaanad qaadayaan dadka doonaya inay dalkan dhalashadooda weydiistaan inayna waxba iska bedelaynin sidii hore hawsh u socotay ay u socoto oo qof kasta oo gaaray 5 sanadood oo codsanaya in dhalasho la siiyo ay u damaanad qaadayaan inay diyaar u yihiin oo codsigiisa aqbalayaan sidoo kale waxay sheegeen inaanay waxba iska bedelin oo dhaartii ay September bishan la dhaarinayo dad badan oo runtii ay u ogolaadeen inay qaataan dhalashadan marka waxaanu ku waaninaynaa bay dadka kula talinaynaa in ay magaranaysaa codsigoodii soo gudbiyaan oo adii ay qorshahoodu ahaa inay sanadkan dalbadaan dhalashada oo ay xareeyaan oo ay niyadoodu xumaatay oo isleeyihiin wax iska joojiya aanay taasi niyadda gelin ee sidii ay wax u socdeen ay u socdaan sidoo oo kale waxay sheegeen dadka doonaya inay dalka ka baxaan oo magaranaysaa safar ay galaan oo kale inay bixi karaan iyaga laftoodu oo aanay taasi waxba yaraatay ee wax mashaakil ku haynin hawluhuna sidii hore ay u socdeen ay u socdaan kudana waxaad moodaa inay damaanad qaad runtii bixinayaan aad iyo aad u muhiim ah oo ah fariintii hore ee dadka gaadhay inay doonayaan inay dib dadkii uga raali geliyaan waxay sidoo kale sheegeen kudana in ay dadka ku dhiiri gelinayaan aadna u celcelinayaan kuna adkeynayaan inay wax alla wixii Allah mas'ala Maxamed ay ku sahabsan dadka codsanaya dhalashadan ay doonayeen dalka inay Allah dhalashada helaan ay diyaar u yihiin inay aqbalaan oo ay Allah mas'ala soo gudbiyaan iyaguna sidii waajibkoodu ahaa markastaba inay wixii codsiga qofkaasi ku sahabsan inay ilaalinayaan inay baaritaan ku sameyn doonaan laakiin arinta ku sahabsan tay maxkamaddu xukuntay inay runtii aad moodo inay dhinac iska dhigeen sida oo kale waxay sheegeen in qofka marka uu codsigiisa gudbiyo wixii dheeraad ee warar ee laga rabo inay la soo weydiyo oo ay soo weydiin doonaan laakiin inaanay dadku niyad sabin oo aanay ka qoosanin in dalkan ka qaataan dhalashada ee albaabkaasi u furan yahay wax waliba ay sidiisii yihiin waxaana runtii sheegeen in xeerka guud ee ay soo saartay maxkamadda dalkan ugu sareysa inaan wax saameyn ku yeelan doonin dadkii hore u helay dhalashada oo dadka dhalashada qaatay hore u qaatay dhalashadaasi inaan wax dambe looga daba noqonayo aanay jirin wax saameyn aanay ku yeelan doonin sidoo kale hay'adda qaxoontiga hay'adda sharciyada ee immigration-ka dalkan u qaabilsan NS waxay dadka weydiisatay inay muujiyaan samir ay muujiyaan inta ay xal ka keenayaan degdega arrintan ay muhiimadda koowaad ay siiyeen waxaana runtii ay dadka ku waaniyeen wixii warar ee dheeraad ee ka soo baxa in hawshatan inta lagu guda jiro inay website-kooda ay booqdaan iyo oo runtii diyaar u ah inay wax kasta oo su'aal oo ay dadku qabaan ay ka jawaabi doonaan. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.